haddaanu nahay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka gobolka Cayn waxaanu cambaarayn u soo jeedinaynaa mulkiilaha Universal TV oo ka been sheegay dhacdadii dagaalkii ugu dambeeyay 20kii bishii 2011 ka dhacay Kalshaale iyo Hagogan qodobka labaad waxaanu adduun weynaha iyo saxaafadda caalamka u soo bandhigaynaa in warkaasi sidii uu ku baxay lagu daawaday uu ahaa waxna aanay ka bedelayn been abuurna ay tahay sawirada lagu sheegay inay xamar laga soo minguuriyay ay sawiradu ahaayeen kuwii Kalshaale iyo Meega qodobka saddexaad waxaanu mulkiilaha Universal TV ugu baaqaynaa in uu ka jawaabo waxa ku kalifay inuu beeniyo dhacdada xaqiiqda ah Kalshaale uu ka been sheegay qodobka afraad ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaanu u sheegaynaa in warkaasi uu ahaa sida uu ku baxay caalamka lagaga daawaday warkan dambana uu ahaa propaganda ay ka dambeysay Somaliland mulkiilahana aanu u aragno in uu isagu baqdin lagu baqdin geliyay oo hadalka baqdin uu ku yiri sida uu sheegay xogayaha waraaqda akhriya ee Cabdilaahi waxaanu halkan ka cadeynaynaa warka uu sii daayay mulkiilaha Universal TV in uu ahaa mid aanu u aragno in lagu khasbay inuu beeniyo uusan ku keenin xorriyadiisa marka sidaa darteed waxaanu leenahay in saxaafadda laga been sheego caalamka wax warkii ka baxay gobolka Cayn 20kii bishii 2011 wuxuu ahaa dhacdadii ka dhacday Kalshaale iyo Hagogan iyo Meegagle sidaa darteed waxaanu leenahay haddii lagu khasbay inaad ka noqoto arrinkaas inaad beeniso waa inaad raaligelin ka bixisaa markaad ka tagto meesha lagu khasbay waa inaad raaligelin ka bixisaa markaad ka tagto meesha lagu khasbay inaad ku beeniso caalamkana waxaanu sheegaynaa iyo dadka Soomaaliyeed dhacdadaasi inay ahayd dhacdadii ka dhacday Kalshaale aynan ahayn mid la soo dheegtay oo meel kale laga keenay baanu sheegaynaa cadeynaynaa dadka saxaafadda ka been sheegaya iyo dadka ka qaadanaya wararka ilaaha aan xogagaalkana ahayn una qalmina waxaanu leenahay ka dheeraada sida xagar oo kale waxaanu leenahay ka dheeraada oo iska daaya ilaaha aan u qalmin in warar laga qaatay aad ka qaadanaysaan ka been sheegaya saxaafadda mulkiilahana waxaanu leenahay arrintaa waa inaad raaligelin ka bixisaa haddii kale waxaa caddaanaysa inaad dhinac tahay oo aad la safan tahay intaasaan